السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج عصب waxaan idiin soo gudbin doonaa 13 xayawaan kuwaasi oo leh xaqiiqooyin aadan ka ogeyn isla markaana la yaab leh. Xayawaanka koowaad, ma ogtahay in xayawaanka badeedka loo yaqaano shrimp uu wadnihiisu ku yaalo madaxiisa? Xayawaan badeedka shrimp ayaa waxa uu ka mid yahay xayawaanada ku nool badda, isla markaana waxa uu shabahaa xayawaanka loo yaqaano aargoosatada. Haddaba xayawaankan ayaa waxa wadnihiisu ku yaala madaxiisa, taasi oo ka dhigan in xayawaankan wadnihiisu ku dhex shaqeeyo madaxiisa, taasi oo mucjiso ka mid ah mucjisooyinka Eebe subxaanahu wa tacaala uu aadamihiisa iyo xayawaanada ku kala saaray, isla markaana uu ku kala duwan yihiin makhluuqaadka uu Eebe subxaanahu wa tacaala abuuray. Lambarka labaad, ma ogtahay in xayawaanka dixiriga qolofta lihi uu seexan karo ama uu hurdo ku jiri karo aan kala joogsi lahayn muddo 3 sano ah? Xayawaankani wuxuu hurdo ku jiri karaa isla markaana uusan hurdo kala joogsi lahayn hurdi karaa muddo 3 sano ah, taasoo ka dhigan in xayawaankani uu intaasi oo dhan hurdi karo isagoo aan doc isu gedin waxna cunin, isla markaana aan isdhaqaajin ayuu waxa uu hurdi karaa 3 sano oo xiriir ah. Lambarka saddexaad, ma ogtahay in xayawaanka la yiraahdo koala in aqoonsiga faraha ay adag tahay in aqoonsiga farihiisa laga garto kuwa bini'aadanka? Xayawaankan ayaa waxa uu leeyahay mid u eg bini'aadanka, qaab u eg ama hanaan u samaysan gacmaha bini'aadanka ama waxa loo yaqaano fingerprint-iga bini'aadanka, wuxuuna aad u shabahaa aqoonsiga faraha bini'aadanka. Waxaana dhacday in marar fara badan la isku khalday, taasi oo sababtay in dambiyo fara badan la garan waayo cidda samaysay, maadaama xayawaankan iyo bini'aadanka aan la kala garan karin aqoonsiga farahooda ama fingerprint-iga. Lambarka afraad, ma la socotaa daawada in bacoola galeenka ama xayawaanka bacoolaha gala uu leeyahay 4 san? Sida aad ogtihiin, xayawaanka bacoola galeenka la yiraahdaa waxa uu ka mid yahay xayawaanada yaryar ee dhex gala bacoolaha, waana xayawaan aad u yar runtii, isla markaana wuxuu dhex galaa bacoolaha. Xayawaankani waxa uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyay 4, taasi oo midba uu dac u jeedo. 4 san ayaa waxa uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay xayawaankan oo inta badan ku dhex jira bacoolaha. Lambarka shanaad ee soo qaadan doonaa waa daawade, ma la socotaa maroodiga? Maroodigu waxa uu ka mid yahay xayawaanada Ilaahay abuuray kuwooda ugu awooda badan. Haddaba maroodiga ayaa waxa uu ka mid yahay xayawaanada aan isqaadi karin, isla markaana miisaankiisu culus yahay. Haddaba ma ogtahay, ma la socotaa in xayawaanka kaliya ee aan isqaadi karin ama aan boodi karin uu yahay maroodiga? Maroodigu isma qaadi karo, isla markaana waxa uu ka mid yahay xayawaanada aan isqaadi karin. Maroodiga ayaa waxaa la sheegaa in sababta ugu weyn ee uu isu qaadi karin ay tahay maadaama uu yahay xayawaan ballaciisu weyn yahay, isla markaana aad u culus, ay adag tahay inuu isqaado. Haddaba lambarka 6 ee soo qaadanayno waxa weeye, ma la socotaa daawada in xayawaanka rhinoceros uu ka samaysan yahay timo geeskiisu? Haa, timo ayuu ka samaysan yahay geeskiisa. Sida aynu aragnay, waa xayawaan aad u weyn, haddana aad u soo shabaha jeerta. Xayawaankan ayaa waxa uu aad u shabahaa, isla markaana xoogaa uu si uga eg yahay xayawaanka loo yaqaano jeerta. Haddaba xayawaankan ayaa wuxuu leeyahay gees dheer. Haddii aad ka fogtahay waxaad u malaynaysaa geeskaasi inuu cad ka samaysan yahay ama uu laf yahay ama uu gees caadi yahay, balse geeskan wuxuu ka samaysan yahay timo caadi ah oo aad waxa weeye usoo koray. Lambarka 7 aynu soo qaadanayno waxa weeye, ma la socotaa mase ogtahay xayawaanka tukuba ee loo yaqaano sloth inay 3 usbuuc ku qaadato in calooshiisu ay shiido cuntada? Haddaba xayawaankan ayaa waxa ay ku qaadataa muddo 3 usbuuc ah in calooshiisu ay shiido cunnada. Waa in ay kaliya shiido neef mareenka cunnadiisu, inay cunnada shiido waxay ku qaadataa 3 bilood oo kaliya, oo 3 usbuuc ayay ku qaadataa in calooshiisu ay shiido cunnada. Waa runtii arrin la yaab leh.
xayawaankan ayaa wuxuu yahay mid dhogor leh, weliba dhogorta daanyeerka oo kaleeto waa xayawaan aan dheerayn, balse aada u tukba sida diidiinka oo kaleeto ayuu tartiib u socdaa. lambarka sideedaad, ma ogtahay in ku dhowaad boqolkiiba 3 barafka dhulbarafeedka Antarctic uu yahay kaadida xayawaanka baraf ku noolka ah ee loo yaqaano penguin? aan sii jilciya xayawaan ku nool barafka meesha loo yaqaano Antarctic ayaa waxa ay sheegaysaa in boqolkiiba 3 xayawaanka kaadidiisa uu barafkaas ka samaysan yahay. Sababtuna waxay tahay ayaa leeyahay heerkulka ayaa wuxuu yahay 0 centigrade. Sidaa darteed kaadida xayawaanka ayaa dhaqaajisa ama uumi bixisa barafka, taasoo isku labta ama isku darta kaadida xayawaanka iyo barafka. Sidaa darteed ayaa kaadida xayawaankaas loo yaqaano magaciisa penguin ayaa waxay boqolkiiba 3 noqotay barafkii. waa arrin la yaab leh. lambarka 9aad waxay tahay, ma ogtahay in lo'da waa xayawaanka lo'da noloshiisa oo dhan laga liso caano gaaraya 200 oo kun oo galaas. hadda waa 200 oo kun oo galaas ayaa nolosha caanaha lo'da laga lisaa, waa nolosheeda oo dhan ama life span. lambarka 10aad waxay tahay, ma ogtahay in gerigu uusan qaylin karin isla markaana uusan bini aadamku maqli karin sawaxanka geriga, balse ay si hoose iyagu isla xiriiraan, taasi oo uusan bini aadamku maqli karin. xayawaanka geriga oo aan aragnay inuu yahay mid aada u sur dheer isla markaana surkiisu uu runtii aada u dheer yahay, ayaa waxay culimmadu darseen in xayawaankaas uusan sawaxan samayn karin, haddii uu sameeyana aysan bini aadamku maqli karin maadaama uu surkiisu aada u dheer yahay. marka taasi waxay sababtay in bini aadamku uusan awoodin inuu maqlo xayawaankaas sanqartiisa. mana waxa weeye awoodno bini aadamku awood uma laha inuu maqlo sanqarta ama qaabka uu u hadlo ama qaabka uu u qayliyo u ciyo xayawaanka loo yaqaano geriga. waa arrin runtii mucjiso ah. tan 12aad 11aad aynu soo qaadanayna waxa weeye, ma la socotaa in rahu uusan matagi karin? raha waa aragteen, waa xayawaan inta badan ku nool biyaha ku dhex nool, gaar ahaan meelaha waraha oo kaleeto iyo ceelasha iyo baraagaha iyo meelahaas oo kaleeto ku nool. haddaba ma la socotaa in rahu uusan matagi karin? haddii uu matago waxaa leeyahay uu soo matagayo dhammaanba calooshiisa, gebi ahaanba calooshiisa ayuu matagaya. waa haddiiba uu matago, ma matago, laakiin haddii uu matago wuxuu soo matagayaa guud ahaanba calooshiisa, taasi oo ka dhigan inuu dhimanayo. lambarka 12aad ayaa waxa aynu kusoo qaadanaynaa xayawaanka loo yaqaano gorayada. gorayada waxaynu aragnay inay tahay xayawaan aada u weyn isla markaana inta badan ku nool meelaha duurka ah. ma la socotaa haddaba in xayawaanka gorayadu isheedu ay ka weyn tahay maskaxdeeda? isha xayawaanka loo yaqaano gorayadu waxay ka weyn tahay maskaxdeeda, taasoo runtii la yaab leh. maskaxda oo aynu runtii ognahay inay tahay waxa aada u weyn ayaa waxa ka weyn isha xayawaanka gorayada. marka macnaheedu waxay tahay xayawaankaas maskaxdeeda ayaa aada u yar, guud ahaanba isheeda ayaa ka weyn maskaxdeeda oo ah mid aada u yar. lambarka 13aad ugu dambeeya kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena waxaa weeye, ma la socotaa in boqolkiiba 50 xayawaanka loo yaqaan orangutaska ee ka tirsan bahda xayawaane abi ay lafihiisu jajaban yihiin? boqolkiiba 50 xayawaankaas lafihiisu way jajaban yihiin, sababtuna ay tahay in xayawaankaasi uu iska soo tuuro dhirta, taasina ay sababto inuu lafaha ka jajabo. waxay leeyihiin maadaama xayawaankaas uu yahay xayawaan dhirta aada u fuula, waxaa jajaba ama burbura boqolkiiba 50 lafaha xayawaankaas. waxaa xayawaankaas uu inta badan fuulaa dhirta wuuna kasoo dhacaa, taasoo sababta in lafihiisu ay jajabaan. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkiina. fadlan haddii aad ka heshay la sii wadaag saaxiibadaada, isla markaana waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saartid, isla markaana aad furatid kambanalkaasi ay kuu soo gaaraan macluumaad fara badan oo xiisa leh oo aan halkan kusoo gudbin doono. aad baad u mahadsantihiin.